السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتك كسو دوادا وصاحبكين كابتن سيريوس يا صاحبك أحمد. ما أنت وحان ربنا إنا كهذا الله قضب كصابسن dadka caanka ah ee baraha bulshada caanka ka ah ee waxa weeye qurbaha degan iyo qaybta ay ku leeyihiin qabyaalada hurinta waxa weeye qabyaalada iyo soo nooleynta qabyaalada dadkaas oo waayadan dambe aan si dhow ula soconay arrimahooda ay u xubsibteen muxuu ahaa qabyaalada oo isku bedelay dad qabiil marka saaxiib Axmed ku soo dhawow barnaamijka Captain Sirad aad baa u maasan tahay sida wanaagsan ay soo dhaweysay maanta waxaan rabnaa inaan falaqeyno mise aan ka hadalno waxa ka jira baraha bulshada haday noqoto Facebook haday noqoto Snapchat haday noqoto TikTok sidoo kale YouTube-ka sida ogtahay waxa jirtay isku dhac dadka micnaha magaca leh baraha bulshada caanka ka inay isku dhacana micnaha dhacday صح like waxa isqabsanin kale Sharma Boy idaara culusu صح arintiisa cabaar bay socotay waqti badan bay socotay kadib waxa dhacday in ay heshiin صح heshiis baa dhacay haddana khilaaf saashil arkaysa micnaha ku arkaysa Facebook صح live waxa soo galay wiilkii Sharma Boy ah kadibna wuxuu sameeyay in uu ka hadlo arinta daara culusu iyo qaabka micnaha YouTube-kiisa waxyaalo ma ka hadlay صح waxa dhacday in micnaha Sharma Boy dadku dhashay صح inay ka hadlaan ayaga oo micnaha aflagaadineen micnaha qabiilaha kale aan ka dhaxgalay Sharma Boy fanaan caan oo ahaa nin dhalinyaro fanaan caan oo ahaa nin qabiilna ma ahayn muqdisho ku koray oo ku noolaa ciyaal xamar buu iska ahaa Sharma Boy hees buu soo qaaday heesti waxa weey magaca madaxweynaha ku jirtay marka Sharma Boy oo ciyaal xamar oo muqdisho ku koray asxaabtiisu xamar joogan maxaa ku kalifay inuu meeshii uu muxuu ahaa bahan ka soo jeeday uu dib ugu laabto yaa ku kalifay garow uusan qofna ka aqoonin inuu ku noqdo wallahi horta taas ayada micnaha waxa waay wax asaw qaas ah صح ma dhigi karaan micnaha sababtaas u baxay ma dhigi kari صح oo lagu ma khasbin miya ma dhigi kartaa ma dhigi kari laakiin tan saxda waxa waay aan rabaa inaan barnaamij ka qayb qaato صح in micnaha aan ka hor imaansanahay qabyaalada qabyaalada ay wadaan dadka caanka ka baraha bulshada صح waxa jiraan dad fara badan صح oo magaca la amal baraha bulshada Soomaaliya taqaan horta YouTube markii la YouTube markii loo صح waxa dawdaan dad weyn dad yar صح haddii maanta dhalinyarta yara dadka role model-ka micnaha dhalinyarta maanta soo kaxayn haddii qabiil looga sheekay ka waran waa ayaan daro صح marka waxyaalaha micnaha maanta ay aaro waxa waaye aduujiga qiiraha ka muuqataa صح waa sida ujeedo sirayso صح ani ahaantii ujiga wax ka muuqata qiiraha fara badan maxaa qiirada ku taasoo micnaha sababaysa amal dadka YouTube ku jiraan ee magaca la amal hadii ay mar walba ka sheekanayaan hadii ay views ku raadsadaan in micnaha qabyaalada ka sheekayaan hadii views ku raadsadaan nin walba dadku dhashay hadii micnaha uu fiiriyo amal oo uu yeeliyo amal waxa arkay hadii laga waxa dhacay daal culusu waxa ka soo jeeda qabiilka uu ka dhashay Sharma Boy صح nin walba micnaha maanta aha ma jirteen صح wuxuu taageersan yahay Sharma Boy ama harti ah oo falsafan yahay ki habargida wuxuu taageersan daal culusu صح ma fahantay marka ani ahaantii waxaan dhilaha ولا ليال ما فعنا بطاطا موحقي لما فعنا صح ما فهمت صح قبيل صومالي عرفت دولتك ما جرتو صح هديك جرتني صح دبك معناه ما عند ماشي جرو عرفت ما انت برا بالشيء اكو عرفته يا اسمارك جرتها صح ما فهمت صح مرك تاسان كور مثلا runtii waxaan idin leeyahay Soomaaliya ismaqla qaran la'aan oo marhooni qabyaalada daaya marka saaxiibkay uu sheegay qabyaaladii oo fadhida ka muuqata dadka social media ku jira waan su'aali doonaa anigana waxaan rabaa inaan tala soo jeediyaan rabaa dadka caanka ah waa dadka qabyaalada war qabyaalada naga daaye qaar waxaan arkaynay intay lacag soo direen geel lagu galay qaar waxaan arkaynay muxuu hab qabiil lacag ku ururinayo waa waray qaar ooyo oo waxa weeye yaa reer hebel baan arkayn qaar waxaan arkaynay canjalafaynaya dadka waxa weeye Soomaalida ah ee gobolka waqooyi bari daga ama waxa weeye kililka shanaadaga oo ku haya dadkaasi dadka dhibaat Kenya ku nool dhib bay ku hayaan warda idinka dhibka isku hayee dadka dhib idin kuma hayaan dadkaas waa dad xalaala nidaam dawladeed waa bay ku koreen oo ay hoos degan yihiin marka nidaamka in la raaco baa sax ah marka qabyaalada marka dadka caanka isticmaala magacyadooda ma sheegi karaa xaloo kale waxa ku jirtay live maamuliina ku jirtay صح oo micnaha si kul u hadashay صح ma fahanti صح marka ark maamada Soomaaliya yaabo malo aan la yaabin maamuliin oo aan garanayo micnaha xaaladeeda aan garanayo horna u soo daawan jiray wax micnaha ay tan aan garanayo waa xagga kalamiya ayado taa jirto waxa hadlay kartaa ibadana صح ما فهمت محلو هذلي أصلا من الناس أو هن وهذا أدي قبيل ليسن وهذلي صح كده وحال نيك لا تقبله أو أصلا إنها بهذا السنة صح ما فهمت
marka bataanta waxaan la yaani hantiida صح qabyaalad wax wanaagsan maahan صح maanta waa aragtay Soomaaliya صح marka tagtay qaxootiga marka tagtay صح had laakiin nadiistan qaxootiga dabku yaalo refugee dabku yaalo waxa ka buux Soomaaliya صح marka tagtay gambaashida Gambala Soomaaliya baa qaxooti ku Kenya marka jidka Kakuma صح maraykan ka qaxooto Ethiopia meel walba marka tagto Soomaaliya qaxooti صح maxaasaba ama dhul beelayin waa aragtay badaha ku yaala meesha صح kalluun baa laga helaa waxa la farabadan wax walba adduunka la Soomaaliya tala صح ma fahanti wixii lama arko orta صح ma fahanti bada loo talagay in khiyaraadka lala soo baxo waa lagu taariyaa doonaa u raacaa صح dadka inta badan dhalinyarta wax ku dhumaadaan waxa way bad waay صح ma fahanti صح dadka marka maanta baraha bulshada ku jira camal oo caanka ay u sheegi lahayn inaha nabadda ka talin lahayn haddii ay ka taliyaan camal qabyaalada ka taliyaan صح wiilka dhalinyarta maanta aniga kale maanta hadaan iska hadlo صح beri maxaa noqon karaa هذا قبيلة haddii aan ku jiro haddii maanta aniga aan baraha bulshada ku jiro صح oo caan aan ahay صح oo ninka qabiilkii aan fiiriyo صح kan beri yiri aniga yar maxaa noqon karaa wuxuu noqonay qabyaaladaysto xun buu noqonayaa oo qabiilaysta waxaa niyo Captain Sirius oo baraha bulshada ka jira ee mar walba aad daawato wax noocaas kale waay صح dadka aan dhaxgalay qabyaalada horinaya kulligood waa qaxooti caanka daahir calasow shiino colay Captain Ayub maama Malyuun muxuu ahaayay ninkii dhuusaya la baxay muxuu ahaayay Niciimo Joker kulli way badan yihiin rag iyo dumar ma fahant marka waxaan leenahay wadanka dhex joogto walaaladiiga maale waxa tahay qaxooti ee qiil ku jooga abti wadan baa lahayn wax kastaan lahayn waqtigan la joogo waxaan nahay waraabe Soomaalida meel kasto ay marayaan waa tuka cambaarle immigrationada ee rabodada si il qalocsan baa lagu fiiriyaa waayo hadaad passport Mareykan ama Canada si nasiib aad ku heshay ama Europe still qaxooti baa tahay dadka waan kala halmaamay si keenay uu ku jira dadka qabyaalada wada dadka caanko dhan baa qabay waan kala halmaamay muxuu dabca sarre duqbilowde kulligood dadka waa dadka qabyaalada wada waa dadka qabyaalada dhalay tan kale waxaan rabaa inaan ka hadlo ajaaniskan uga faa'iideysto Captain Sirius oo adoo mahadsan Sharon Boy waa nin dhalinyaro ah wiil Soomaaliyeed ah taadiis aad buu yartahay YouTube nimcnaa waa waxa kamid dhalinyarta camal dadka nimcnaa encourage garaysa camal dadka dhalinyarta ku dhiirigeliya muxuu ama madadaaliyo samki loo tan kale qaladka nimcnaa wiilkaas camal la galay waan wala aragnay mono monen in nimcnaa la ilo ani ahaantiga camal qabiil miya ani qabiil ninka ku dhashay kamid dhalin laakiin wiil Soomaaliyeed waa infant waan u dhaqanayaa وانا كحما عمل إن ويل أنا يرى أصلا الله قمه لكن هذا نوع حديدنها هذا نوع حديدنها عمل إن حب قبل عمل هو حليه ها ورنتا ضدك بريان ده قبيلة كحارته وحكم ذا إن أد وحوي وحنركي شينو علي أو حوي كينجسي كي كل ليلة يرتجي إني جويين أول برخط بطون بعبتكوا سيدا كله ما مدي هذا شيء تمام مليون أو كله وضد ماذا يجوان بأركان ضدك عدانك قبيل مكرل وما فهمت dadka ha mid kale waxa jirta ma garanaysaa dadka inta badan qabyaalada ka sheekay ee baraha bulshada ugu jiro qurbay jiraan wadanka micnaha ma ka warqabaan xaaladda wadanka Soomaaliya ee kursan ma oga inta badan ma oga waa run dadka dad masaakiin oo waxa weeye abaar haystaan oo jiilal haysto oo rafaad in ku filan Ilaahay u dhiibay bay hadana waxa weeye qabiil ku kicinayaan marka dadka qurbaha joogo fitmada iyo qabiilka iyo reehibelida naga daayay war umadiina u tura oo waxa weey isku dirka naga daaya intaasaan kaga tageynaa waa Captain Sirius iyo saaxiibkay Axmed wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh